السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أصحابتي ku xiran YouTube channel-kayga soo dhawaada. maanta muuqaalku ka duwan yahay muuqaaladii hore ee dhiirigelinta. maantay waxaan u soconay ama u baxnay dalxiis. waxaan joogaa waan ku suganahay magaalada Asaba ee caasimadda waddanka Itoobiya. meeshaan u socono maanta waxa weeye oo madaxtooyada Itoobiya waxaa la dhisay 1886 waxaana ku soo karay ilaa iyo 9 rasaare ka soo bilow Minlik 1. marka madaxtooyada marka waxa dhisay Minlik 1 ayaa dhisay. waa meelaha taariikhda Itoobiya magaranaysa meelaha taariikhda lagu keydiyo weeyaan. maantay waa waxa weeyaan talaada waxaana shaqeysaa talaada ilaa iyo xadda. meesha magaceeda waxaa la yiraahdaa Unity Park oo runtii waxa dib habeen ku sameeyay oo aad u qurxiyay Abiy Ahmed. waa meelaha ugu quruxda badan Itoobiya. marka anaga hadda waa ka laamiga maraynaa meesha wax yar baan u jirnaa. mar dhowaan insha Allah angalina waxaan la wadaagi doonaa waxyaalaha in ka baahan yahay dhan sharciyaasha in ka baahan yahay oo dhan ayaan la wadaagi doonaa iyo waxyaalihii aan meesha aan ku aragnay. oo jeedaan hadda albaabkeedii meeshii ayaan hadda gali rabnaa. hadda ayaan gudaha u galaynaa. waxaan rabaa insha Allah inaan fiidiyowga dhixiisa ama gadaal ayna kaga sheego waxyaalaha in ka baahan yahay iyo sharciyada iyo magaranaysa qofku wuxuu ku soo gali doono iyo waxyaalahaas dhan muuqaalka gadaashiisa qaybtiisa dambe ayaan ku sheegaynaa insha Allah. hadda meesha ayaan soo galnay. markaas saa u soo gashid halka u jeedaan magaranaysa ay dadku taagan yihiin. waxa weeyaan intaan hore u socon warqadaas lagu dhigayaa maapka oo meesha ay ka kooban tahay meel wax jira inter oo aad ka galaysid iyo hadhow meel ay sida ka soo bixisay. waxa sidoo kale warqadaas ay ku sinaysaa meelaha aad mari lahayd yani maapkii oo dhan meelaha meesha magaranaysa aad raaci lahayd meesha ay ka kooban tahay. hadda waa kaas waxaan joognaa qaybtii u horeysay ee hadda maraynaa waana halka maraya. halkaas markaan marno waxaa ku sii xiga god runtii aad sii maraysid oo dadkii tagay aad u garanayaan godkaas ilaa wuxuu ka yahay 175 mitir. waana ka hadda halkaas aan maraynaa. godku waa kaas way halkan ku dhow. hadda ayaan galaynaa. qaybo badan bay ka kooban tahay. marka hadda inta halka aan dhaafno ayaan garanaysaa qaybta kalena inay sii faahfaahinaya. waa meel runtii aad u qurux badan oo qofku ma garanaysaa u baahan tahay inuu jawi ku bedesho. godku waa kana waanaga hadda dhex socona waanaga halkaas sii maraya. waanaga halkaa marayna cabaar markaan socono ayaan ka bixi doonaa. kadib waxaan tegi doonaa meelihii aadka u qurxoona ee ayaan tegi doonaa. sidoo kale waxaan tegi doonaa meelihii garanaysaa dhaqamada 9 qowmiyadood ee Itoobiya. waxaan tegi doonaa sidoo kale garanaysaa meeshii garanaysaa ka talin jiray hoolkii yani ku talin jiray Minlik oo garanaysaa banquet hall ayaa la dhahaa. sidoo kale meelihii xayawaanaadkii ayaan tegi doonaa insha Allah. anaga hadda godkii kasii dhammaanayna godkii kasii baxayna. وكاس وانا كدماني aad ku faraxsan. roob baan ugu da'aya maalinkaas oo dhan roob ma kicin alxamdulillah.
waa dhul iska nimcaysan. hadda waxaan u soconaa qaybtaas kore oo magaranaysaa cagaarka iyo fiigayo aad u qurux badan oo meel magaranaysaa runtii waa kuwaas cagaarkeeda arkaysaan. waa meel runtii qofku ku yacni waqtigiisa ku qaadan karo, noloshiisa kula sheekaysan karo, magaranaysaa mustaqbalkiisana ku falanqayn karo. waa meel runtii aan aad uga helay. waa kaad anaga fiideoga waan soo koobay. hadda waxaan soo galnay qaybta museumka ayaan soo galnay. museumka ayaa hadda aan dhex soconaa. qaybta museumka runtii waad arkaysaan. markaad dhinaca aan xogaa socono waxaad arkaysaa runtii taariikhaha ra'iisul wasaarayaashii soo maray magaranaysaa. markii aan inta aan ka dhammaano taariikhdooda iyo dhammaan waad arkaysaa qoraalada xataa waan kusoo dhaweeyey. hadda waa dhalashadii Menelik waad arkaysaa. qoraalada aad baan ugu soo dhaweeyey, waad akhri doontaan insha allah. intaan markaan ka dhammaanan insha allah waxaan ugu xigi doonaa howlashi baan ugu xigi doonaa. waxaan ugu xigi doonaa sabana Menelik 1 iyo Menelik 2 oo ayaguna magaranaysaa meelaha qasrigoodii oo meesha ay ka tagin jireen ayaa runtii nagu xigi doonta. intaa markaan kasii dhammaano ayadana waxaa nagu xigi doonaa xayawaanaadkii iyo magaranaysaa. sidoo kale waxaan ilaahay waxaa nagu xiga hool isaguna aad u qadiimiya. hoolka waxaa la dhahaa banquet hall baa la dhahaa. 1898 ayaa waxaa lagu qaban jiray xafladaha qadiimiga magaranaysaa, yani diimaha, xafladaha yani diimaha lagu qaban jiray. waxaana waagaa ahay Menelik 1 ayay ahayd. waan ku sii soconaynaa. halkaa ujeedaan waxaan kasoo galnay qaybtii libaaxyada. ujeedaani kuwa afxaba ku xiraysan. waa meel runtii ayadana aad u qurux badan. libaaxa halkaas iska fadhiya, magaaladiisu iska daawanaya. halkan ayadana waxa weeye qaybtii shimbiraha magaranaysaa noocyadooda kala duwan. runtii waa meel lagu siiyo cuntooyinkooda iyo adeegyada waxyaalaha lagu siiyo. waa meel runtii aad u qurux badan oo indhaha soo jiidanaysa markaad halkaa taagan tahay. waa shimbirihii, waa dadka yani ka shaqeynaya cuntooyinka waxyaalaha kala duwan ay siinayaan. waa aniga halkaa marayo roobkii waa ilaa hadda nagu da'ayo. dharkii waa kuwaas wada qoyanyihiin. waan dhex soconaa, roob baan u joojinay. meeshaasa xamaasadda naga qabatay. xoogaa waan daalnay. halkan iska nimaanay ka saaxiibkii Xuseen. anuu halkaas fadhiyaa jalaata cunaya isagoo halkaa hadda duubaya. qaybtaa jalaataa nimaanay xoogaa garanaysaa isqaboojinaynaa. waan hayay laakiin maxaa yidhi waa narshina ka heshaan baaslenahay. kaasa waxbaa ku yeelnasanay waana kala taagan. halkaas ujeedaan waa gidi. waa kaasoo halkaas iska daawanaya jalaateeda ku cunaya. roobkaas ahay roobba looma jeedo magaranaysaa. dadka waxa wada haya meesha kala duwan oo maanta dhan ka dhargimaysida meesha saa hadda meel yani u tagaysid oo meelo kala duwan u tagaysid. halka xayawaano badan baa jooga oo garigaasa ka mida. waxaa ka mida xayawaanaas dhan deeraa ka mida, garnuugtii waa sidoo kale ka mida. xayawaanada kala duwan oo hadda waan kala ilaaway. halkan hadda nimaanay waa meesha magaranaysaa dhaqanada oo magaranaysaa isteediyada magaranaysaa yani iskaarka qowmiyadood ee Itoobiya. anaga halka hadda ka marayna. halka ujeeda aqalka ujeedaan oo janjarada aan ka korayno waa qaybta magaranaysaa aqal Soomaali ayaa loo dhiso loo jeedaa. hasheenna waa taasoo caanka ku ahayn. sidoo kale dhalada waxaa ka shidan ka arki doontaan waxyaalaha magaranaysaa dhaqankaanu leenahay.
marka sagaalka qowmiyadood ayaa magaranaysaa meeshu ay ku taalo oo magaranaysaa dhaqamadooda lagu soo bandhigaa oo halka hasha dhinaca ka aweeyo oo hadda dhalada aan daawanayo weeye magaranaysaa meesha ay ka daaran tahay oo dhaqamada lagu soo bandhigo waa taa ujeedaan oo Soomaali baa ku qoran Soomaaliya iyada maxaariga marka noocyada Ingiriish iyada maxaariga waa naga halka magaranaysaa daawanayno waa kaas geeleyni hashi waa tahay oo ujeedaan hadda waxaan soo galnay halka ujeedaanin saaxiibkii noo tilmaamayo waa meelaha ay garanaysaa ay ku jiraanin waxyaalaha dhaqanka aanu leenahay fandaalkii iyo waa kamid ah huruubkii waa kamid ah kabihii iyo magaranaysaa macawisihii iyo harugaalkii iyo koortii iyo ujeedaanin ushii hangoolkii oo ayaduna kamid ah waxyaalaha magaranaysaa qowmiyad kasta